bismillahi raxmaan raxiim soo dhowaada saaxiibayaal deegaanka axmaarada waxaa maanta ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa jabhadda faano oo muddooyinkii u dambaysayba halkaasi dagaallo culus ku gelaya sida aan wararka ku helayno ciidamada dowladda ee dalkaasi etoobiya ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen xero lagu tababarayay askar ka tirsan kuwa jabhadda faano oo muddooyinkii u dambaysayba halkaasi lagu ururinayay gobolka waqooyiga axmaarada ku yaalla ee lagu magacaabo wallo ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada militariga etoobiya ay xasuuq ka geysteen dadka deegaanka oo laanta afka xabashiga ee b b c da u warramay ayaa waxa ay xaqiijiyeen inay halkaasi ka maqlayeen rasaas aad u xoog badan iyo sidoo kale qaraxyo waaweyn waxayna wararku sheegayaan in ilaa iyo tiro kor u dhaafaysa 40 askari oo ka tirsan kuwa jabhadda faano halkaasi lagu laayay iyadoona ciidamada dowladdu ay markan sheeganayaan inay guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan jabhadda faano oo gobolkaasi axmaarada ee muddooyinkii u dambaysayba ka dhacay sidaad la wada socoteen maalmihii u dambaysay jabhadda faano ayaa gacanta sare ee ku lahayd gudaha deegaanka axmaarada halkaasi oo dagaalada culus ay ka dhaceen hadda b b c da qaybta afka xabashiga waxay qoraysaa in 39 dagaalyahan oo ka tirsan ciidamada ururka faano halkaasi lagu dilay in ka badan 50 askari oo iyadana halkaasi tababar ku qaadanayay lagu dhaawacay waxayna dadka deegaanku ay xaqiijiyeen in dhaawaca jabhadda faano ee halkaasi tababarka ku qaadanayay ee ay ciidamadu laayeen la geeyey magaalada lagu magacaabo habru istaal ku yaalla waxayna wararku sheegayaan in halkaasi ciidamada dowladdu ay hadda ka wadaan baaritaano kala gedisan oo lagu xaqiijinayo amniga magaaladaasi oo muddooyinkii ugu dambaysaba ay gacanta ku haysay jabhadda faano saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada etoobiya ka soconaya iyo sidoo kale dhacdadan cusub ee maanta ay ciidamada dalkaasi etoobiya ku laayeen tiro aad u fara badan oo kuwa jabhadda faano ah ayaanu halkan idinkula wadaagi doonaa magan media ayaad igala daawanaysaan waxaan ahay cabdulqaadir maxamed soo dhowaada saaxiibayaal oo ku soo biira barteenna youtube-ka oo subscribe ku sameeya magan media sidoo kalena muuqaalkan laygaray saaxiibadana la sii wadaag aynu ku bilowne deegaanka gobolka axmaarada ee dalkaasi etoobiya muddooyinkii u dambaysay waxaa ka taagnaa xaalad qalalaasi oo aad u kacsan iyadoo jabhadda faano ay muddooyinkii u dambaysay dagaallo adag kula gelaysay dhulka uu ka kooban yahay guud ahaanba deegaanka axmaarada hadda wararka aanu helayna waxay xaqiijinayaan in ugu yaraan tiro kor u dhaafaysa 40 askari oo ka tirsan kuwa jabhadda faano lagu weeraray goob ku taalla xero tababar oo maleeshiyada jabhadda faano ay ku lahayd ama ay ku lahaayeen agagaarka degmada lagu magacaabo habru oo ka tirsan gobolka axmaarada gaar ahaan gobolka waqooyiga ku yaalla ee loo yaqaano wallo mas-uuliyiin deegaanka iyo sidoo kale dad goobjoogayaala ayaa waxa ay sheegeen in weerarku u dhacay maalinimadii arbacadii aynu soo dhaafnay oo shalay ahayd waxayna xaqiijiyeen in dagaalkaasi uu socday ugu yaraan 30 daqiiqo wararku waxay intaas ku dareen in aggaasi laga maqlayay rasaas xoog badan iyo sidoo kale qaraxyo ay ciidamada difaaca qaranka etoobiya ay halkaasi ku weerareen dadka deegaanka qaar ayaa waxa ay sheegeen in khasaaruhu uu ka badan yahay tirada ilaa iyo hadda la xaqiijiyey oo waxa ay sheegeen in jabhadda faano laga dilay tiro kor dhaafaysa 56 askari halka ay sidoo kale sheegeen in laga dhaawacay 50 dagaalyahanada kooxda jabhadda faano ka tirsan maalmihii ugu dambaysay ayaana la sheegay in xeradan tababarka ee halkaas ku taalla ee lagu weeraray taasi oo ku dhow xerada qaxootiga ee lagu magacaabo jara taas oo tan iyo 2015 halkaas lagu ururinayay dadka xabashida ah ee ka soo qaxay ama laga soo barakiciyey deegaanada oromada halkaasina oo ay ku sugnaayeen muddooyinkii ugu dambaysay dadkan ku jira xerada qaxootiga ee lagu magacaabo jara oo gobolkaasi wallo ku taalla ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen rasaas xoog badan oo maalmihii u dambaysay halkaasi ka dhacaysay waxay sidoo kale xaqiijiyeen in xerada la weeraray ay ahayd meel lagu tababaro dhalinyarada ay jabhadda faano muddooyinkii u dambaysayba degmadaasi ka qoranaysay iyo sidoo kale xerada qaxootiga oo halkaasi ay dhalinyaro badan oo deegaanka xabashida ka soo jeeda ay ku noolaayeen taas kuwaasoona ka soo barakacay ama laga soo cayriyey deegaanada gobolka oromada iyadoona oromadu ay dhulkeeda muddooyinkii u dambaysayba ay ka cayrinaysay sidoo kalena ay dilal ay u geysanaysay dadka ka soo jeeda qoomiyadda xabashida ee gobolkaasi ku nool hadda wararku waxa ay tilmaamayaan in xeradan muddooyinkii u dambaysaba ay ciidamada jabhadda faano ku samaynayeen tababaro kala gedsan waxaana la sheegayaa in muddadii ay degmadaasi gacanta ku haysay jabhadda faano ay ahayd meel
ay ku tababaraan dhalinyarada ay sida qasabka u qortaan ay ka qortaan xerada qaxootiga halkaas ku taalla kuwaasoo la sheegay in noloshoodu ay muddooyinkii u dambaysaba u dhexaysay in ay jabhadda galaan ama ay meesha ka cararaan maadaama jabhadda faano ay doonaysay ciidamo ay qorato wararka ayaa intaas ku daraya in weerarku uu argagax ku riday sidoo kalena laga maqlayay deegaankaasi oo carruurta iyo sidoo kale haweenka ku sugnaa xerada qaxootiga ee jara lagu magacaabo ayaa waxa ay dowladda uga ashtagoodeen in weerarkaasi uu saameyn iyaga carruurtooda iyo sidoo kale qoysaskoodaba uu ku yeelanayo istaalka magaalada waldiya oo iyo sidoo kale kan degmada lagu magacaabo habru oo hadda ay jabhaddu ay ku badan tahay ayaa waxaa la sheegay inay gaareen ama la gaarsiiyey dhaawacyada kala gedisan ee halkaasi lagu dhaawacay waxa ayna wararku sheegayaan in agaasimayaasha iyo sidoo kale hawlwadeenada caafimaadka isla istaalka weyn ee waldiya uu sheegay in la soo gaarsiiyey dhaawacyo aad u tiro badan oo laga soo qaaday xeradan ay ciidamada militariga ee dalkaasi Ethiopia ay weerareen haddaba saaxiibayaal si guud ahaanba gobolkaasi muddooyinkii u dambeysay waxaa ka taagnaa xaalad quusa iyadoona dagaallo waaweyn ay ku dhex marayeen ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale jabhadda faano oo muddooyinkii u dambeysaba rogaal celis ballaaran ku sameynaysay ciidamada difaaca qaranka Ethiopia BBC-da qaybta af xabashiga ayaa sidoo kale waxay qortay in aagaasi uu maalmihii lasoo dhaafay dagaallo aad u culus ay ku dhex mareen ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale kuwa jabhadda faano ayaana muddooyinkii u dambeysay ku gacan sarreysay dagaalkan waxaana la sheegay in deegaano hor leh ay gacanta ku dhigtay tallaabadan hadda iyo xeradan tababarka ee maleeshiyaadkani ay tababar ku qaadanayeen ayaa dad goobjoogayaal waxay xaqiijiyeen in lasoo jaajuusay oo dadyow ku sugnaa xerada qaxootiga ee jara oo ay dad qowmiyadda xabashida ka soo jeeda hoy oo hadda xilligan ay ciidamada dowladda ku wargeliyeen in tiro saraakiil ah iyo sidoo kale askar kala gedisan oo jabhadda faana ah ay halkaas ku sugan yihiin tababarna ay ku qaadanayeen isbuucyadii lasoo dhaafay kuwaasoo la doonayay in loogu diyaariyo inay ka qayb galaan gulufka ay jabhadda faano ku doonaysa inay kala hortagto ciidamada dalkaasi Ethiopia oo maara ulac siday uga hortagaan ama ay u joojiyaan awoodda sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa kor sii kacaysa iyadoona dhalinyarada gobolkaasi axmaarada ka soo jeedayay ay hadda intooda ugu badan si maalinla ah ay u qoranayaan ama ay ugu biirayaan jabhaddan faano oo 2 sano ama 3 sano ugu dambeysay deegaankaasi ka dagaalamaysay mar ayaa guud ahaanba gobolkaasi magaalooyinka ugu waaweyn waxa la wareegay jabhadda faano kadib markii ay ciidamada difaaca qaranka Ethiopia halkaas ku jabiyeen rasaas iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala gedisan ayayna jabhadda faano gacanta ku dhigtay xilligii intii ay hadda sanadii ugu dambeysay ay la dagaalaysay dhinaca kale jabhadda faano waxa la sheegay inay isu diyaarinayso dagaal guud oo markaana ay ku qabsato guud ahaanba deegaankaasi waxaana hadda la sheegayaa in gobolada Wallo iyo sidoo kale gobolka Gondar iyo kan magaalada caasimadda ee Baardar ay dhulka buuraleyda ee halkaas u dhaxeeya ay isku diyaarinayaan ciidamo cusubna ay qoranayaan iyadoo dhinaca kale warbixino gudaha ay tilmaamayaan in askartii dhawaan dhalinyaradii ama ardaydii dhawaan la shaaciyay in imtixaanka guud ee dalkaasi Ethiopia ay ku daateen gaar ahaan kuwii gobolka xabashida ka soo jeeday ay markaana qoranayaan ama ay ku biirayaan jabhadda faano iyadoona arrintaasi lagu dhaliilay dowladda uu hogaamiyo Abiy Ahmed taasi oo 4 sano la soo dhaafayba ardada ka gudbaysay imtixaanka fasalka 12aad ay aad u hooseysay oo dadka ama dhalinyarada imtixaankaas ku dhacay ay aad u tiro badnaayeen taas ayaana caqabad kale oo siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkaasi Ethiopia ka taagana maadaama tiro kor dhaafaysa sanadkan ilaa iyo 500,000 oo dhalinyaro ah oo dalkaasi Ethiopia ka soo jeeda ay imtixaankii fasalka 12aad ay waayeen haddaba waxaa la leeyahay xiisadda u dhaxaysa jabhadda faano iyo sidoo kale ciidamada Ethiopia ee gobolkaasi aad ayay u xun tahay marba mar kasii dambaysa dagaaladu waa ay sii qaraaranayaan jabhaddu waa ay sii hubaynaysaa haddana jabhadda faano waxayba la xiratay ayaa la leeyahay ninka maamula dalka Eritrea siyaasi farqi kaasi oo doonaya markan inuu ka faa'iideysto awoodda jabhaddan ay leedahay waxaana doonayaa inuu Abiy Ahmed kula dagaalamo gudaha dalkiisa jabhadda faano waa mid ka mid ah jabhadaha ugu waaweyn uguna waqtiga dheer ee dalkaasi Ethiopia ka jira marar kala gedisanayeen ciidamada dalkaasi Ethiopia kula dagaalantay dalka caasimadda ama gobolka xabashida halkaasi oo inta badan ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan
jabhadan ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay doonayso inay soo celiso nidaamkii boqortooyo ee dalkaasi Ethiopia ka jiray iyadoona inta badan boqorradii dalkaas soo maray intooda badan ay ka soo jeedeen gobolkaasi Axmaarada waxayna doonayaan ayaa la yiri inay Ethiopia nidaamka hadda ay ku jirto ee dimuqraadiga ee federaalka ay joojiyaan oo haddii ay xukunka dalka Ethiopia gacanta ku dhigaan waxay doonayaan inay soo celiyaan nidaamkii boqortooyada oo dadka u dhashay deegaanka xabashida ama Axmaarada iyagu intooda badan ay gacanta ku hayeen walow hadda siyaasadda noocaasi Ethiopia aysan ka hirgeli karin maadaama dalku uu noqday system ama uu qaatay nidaam federaala deegaanaduna hadda ay wada leeyihiin ciidamo u gooni ah oo hadda waxaa la leeyahay Ethiopia cid qasab lagu hayn karaa ma jirto waxay noqonaysaa wax la isla ogol yahay in dadkaasi lagu hayo gobolkan haddaba waqooyiga Axmaarada ku yaala oo lagu magacaabo Wallo wuxuu ka mid yahay gobolada dadka ugu badan ay ka soo jeedaan deegaankaasi Axmaarada waxaana inta badan dhalinyarada gobolkaasi lagu eedeeyaa inay meesha ay qoran lahaayeen ciidamada difaaca qaranka Ethiopia ay intooda badan qortaan ciidamada jabhadda Faano lana dhacsan yihiin nidaamka ay wax u wadaan xasuuqan hadda ay ciidamada deegaanka ama dalka Ethiopia ay ka geysteen xeradan maleeshiyaadka lagu tababarayay ayaa waxa ay ku dhex taallaa baa leeyahay xerada qaxootiga ee Jara halkaas oo qaxootigaasi lagu xanaaneeyo waxaa ku nool baa la yidhi tiro kor u dhaafaysa ilaa 500 oo kun oo xabashiya iyo dad malyanba gaari kara marar qaarkood waxayna warbixinada laga helaya tilmaamayaan in dadkaasi laga soo barakiciyey deegaanka Oromada jabhadda Faano markaasi waxay uga faa'iideysanaysaa in deegaanka Oromada dadkan laga soo barakiciyey oo guryahoodii iyo ganacsigoodii iyo dhulkoodiiba la qaatay sidaas darteedna dhalinyaradani iyaga oo ku cadhaysan nidaamka Ethiopia oo markaan Oromadu ay hogaamiso oo ninka Abiy Ahmed uu ka soo jeedo deegaanka Oromada deegaanka laga soo barakiciyay hantidoodii iyo dhulkoodii lagu qaatayna uu deegaanka Oromada yahay ayaa waxa ay si tarabeela ugu biirayaan jabhadda Faano iyagoo markaasi raba inay ka aarsadaan Oromada xuduudda la ah iyo sidoo kale hogaanka Abiy Ahmed oo muddooyinka ugu dambeysayba weerar kala gedisan ku qaadayay xabashida isagoona diyaaradaha dagaalka gaar ahaan kuwa aan duuliyaha lahayn u adeegsanaya inuu ku garaaco dhulka buuraleyda ah ee ay jabhadda Faano ay ku sugan tahay waxaana dhinaca kale jabhadda Faano lagu eedeynayaa inay ku dhuumaalaysato goobaha ay isleedahay dadka shacabka ah ayaa ku nool si aan diyaaradahaasi loogu adeegsanin saaxiibayaal Ethiopia gudaheeda waa ay qasan tahay jabhadda Ola dagaalla ayay ciidamada kula jirtaa sidoo kale Faana iyaduna dhinaceeda ayay ka garaacaysaa walow ay gobollo labada deegaan u dhaxeeya ay labadooduba ama labada jabhadoodba ay ku xoog badan yihiin wararku waxay sheegayaan in hadda wada shaqayn hoosa ay labada jabhadood ka dhaxayso walow ay iyagu arrintaasi ay beeniyeen balse warar maxalli ah oo aan helin waxa ay sheegayaan inaysan beenintoodu waxba ka jirin hadda ay isku dhaarsadeen sidii deegaanada xabashida iyo sidoo kale kan Oromada ay isugu xir lahaayeen oo ay labada jabhadood u wada shaqayn lahaayeen nidaamka ama hogaaminta Abiy Ahmedna ay uga soo wada horjeesan lahaayeen meeshan ay wada saar lahaayeen saaxiib intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena kooban oo aan uga hadlaynay dagaal maanta ka dhacay deegaanka Axmaarada halkaasi oo ay ciidamada dawladdu si gaadma ay ku weerareen xero lagu tababarayay ciidamada maleeshiyaadka ee jabhadda Faano waxaana ay wararku sheegayaan tiro gaaraysa 40 ilaa iyo 50 inta u dhaxaysa in halkaas lagu laayay 50 kalena lagu dhaawacay taasi oo jab xoogan gaarsiinaysa jabhadda Faano iyo wixii ay doonayeen inay isbuucyadan soo socda ay ku diyaariyaan dhalinyaro ay qoranayeen maalmihii u dambeysay kuwaasoo doonayeen inay magaalooyinka gobolka Wallo ay ku qabsadaan guud ahaantiisaba intaas ayaan saaxiibayaal kusoo gabagabeynaa waxaan Cabdulqaadir Maxamed Magan Media ayaad iga daawanayseen kusoo biir Magan Media oo subscribe garay YouTube-keena si aad ula socoto wararka iyo akhbaaraadka aan sida maalinlaha halkan ugu soo gudbino saaxiibayaal inta ku kulmayno barnaamijkeena xiga sidaas iyo nabadgelyo